dhibaatooyinka la diiwaan geliyay dhinaca booliiska ka yimaada oo aan wax weyn iska bedelin sidoo ahaan jiray sanadihii hore markay noqoto inaan booliis wax ixtiraam oo badan u haynin dastuurka iyo qodobada ku qoran xeerka habka ciqaabta guud markay dadka xirayaan dadka loo xiro sifaan sharci ahayn loola dhaqmo si aan sharciga iyo sharaftooda waafaqsanayn iyo goobaha dadka lagu xiro ah ku saldhigyada booliiska aan ahayn kuwa ku habboon in dad binaadan lagu hayo xaaladooda aad u xun tahay taana waxa qayb laxaad ka mid inaanu jirin xeer hagaya booliiska lagu la xisaabtami karo anaga aad iyo aad ugu faraxsan in dhowr maalmood ka hor booliisku ansixiyay xeerka booliiska oo haddii uu dhaqan galo rajinaya in la dhaqan geliyo wax weyn ka bedeli doono hab dhaqanka uu booliisku dhaqmaan aad iyo aad ugu mahad celinaya midaas golaha wakiilada Jamhuuriyadda Soomaaliland rajinaya in xukuumadda cusub ay iman doontaa inay ka duusho sidii xeerka loo dhaqan gelin lahaa dhibaatooyinka booliiska wax looga qaban lahaa arrimaha kale warbixinta ku jira waxaa ka mid ah tii caadada ahayd oo Soomaaliland maaragtay ku ah arrin aad u xun oo ah in xariga suxufiyiinta iyo dadka dawladda dhaliila ay sii badanayeen 27 suxufi baa sanadkan la xiray oo qaarkood hadda xabsiga ku jiraan oo kamid yahay wariye ku xiran gabilay oo kamid yahay Maxamed Aadan Dirir 18 bilood xariga ku wajahaya xabsiga Madheera iyadoo dacwadiisa aan loo qaadin sifo sharci ah ama ahayd aad uga fog sharciga Soomaaliland waxaa jira website la xiriiray oo kamid yahay Harwanaag News dhamaantoodna sifooyinka loo maray aan ahayn kuwa sharci ah iyo dacwad lagu soo oogay sida ogtiina waxaa jira website caan ama wargeysi caan ah hore waxa yiraahdo kamid yahay Haatuf hubsad codka shacabka oo dhamaantood qaabkii loo xiray hay sharci darro Haatuf oo kale ilaa 2014 buu xiray hantidiisa waa laga haystaa sifa sharciina looma marin dacwooyin badan uu sameeyay isku day inuu sameeyana lagama dhigaysan dhibaatooyinka kale warbixintan sheegaysa waxaa kamid ah xariga siyaasiyiinta oo tibaba 8 siyaasiyiintan anagu diiwaan gelinay laga xiray xisbiga mucaaradka ee wadani oo kamid yahay laba suxufi laba siyaasi aan iraahdo maxamed sideed rame Yunus Axmed Yunus oo dacwad lagu soo oogay Yunus lagu xukumay hal sano oo xariga maalintii doorashada iyo kadib ba waxa dad la xiray oo siyaasiyiin oo xisbiyada mucaaradka disan taasina waxay tacadi ku tahay fursad ay u leeyihiin xisbiyada siyaasadda ah inay aragtidooda cabirtaan oo ay si aan cabsi lahayn howlahooda uga qayb qaataan kulka caburanaha sanadkan doorashada ugu jira dhacay ayay kamid ahayd in diiwaan gelinay dhibaatooyinka kale diiwaan gelinay waxa kamid ah tacadiga haweenka loo geysto oo aan wax isbedel ku iman jiritaankiisa nasiib darradu say tahay inaanay jirin xeerar dumarka laga ilaalinayo tacadiyada oo xeerkii Maxamed Siyaad Bare ka horeeyay 62 la ansixiyay xeerka ciqaabta guud kaliya uu yahay xeerarka tacadiyada ka dhana haweenka lagu dhaqo marka kufsiga haduu yahay FGM ka haduu yahay garaacista haday tahay iyo dhibaatooyinka kale faraha badan ee ku yimaada haweenka xeerar ilaaliya ma jiro cadaaladda hiideedana ma helaan faqriga oo jira ha ahaato hay'adaha dawladda oo dalka wada gaarsiisnaa ha ahaato hay'adaha dawladda oo aan u jilicsanayn inay ilaaliyaan haweenkana ha ahaato dhibaato fara badan baa jirta dhibaatooyinka kale jira waxa kamid ah dadka la haybsooco oo tacadi fara badan loo geysto bulshaduna oo geysato hay'adaha dawladuna aanay waxba ka qabanin dhibaatadooduna ay tahay runtii mid baaxsan aan lagana hadal la iskana indhatiro inta badan ama la dafiro laakiin tacadi weyn uu haysto Soomaaliland oo dhan oo dawladuna aanay waxba ka qaban siyaasadda aanay u sameeynin adeegyo bulsho aanay ka jirin goobaha ay joogaan faqriguna uu ku badan yahay oo aragnay inay tahay tacadi ka dhana xuquuqisaanaha inta badan la iska indhatiro sidoo kale dadka xuquuqisaanka u dooda laftigooda dhibaato badan baa loo geystay sanadkan sidii caadada ahayd anaga xafiiskayga laftigiisa dawladdu xafiis sarkaal ka tirsan baa la xoosteed cisho xidhnaa marka intimidation kama cabsi gelinta dadka xuquuqisaanka u doodaana way bandhig sidaas oo ay tahay haddana waxaanu rajaynaynaa maadaama xukuumad cusub dhalatay oo dalka isbedel weyn ku yimi in arrimaha xuquuqisaanka isbedel ku yimaado sidaas raadid talooyin fara badan baan xukuumadda soo jeedinay talooyinkana waxa ugu muhiimsan in dawladda indha cusub iyo isbedel la timaado oo ka kanaantii iyo isindhatirkii dawladda hore ku shaqeynaysa aanay tan ku shaqeynin ay la timaado in dadka u dhibirsanaato oo ogaato cidda dooratay inay tahay dadka shacabka ah ee masaakiinta ah gaajoonaya suuqa maraya oo dadka xaqooda iyo sharaftooda iyo karaamadooda la ilaaliyo